كجبالنا وصوحي هدنا عبارو سوحسنا رسولك عندها أيوسو كالقاضي hadalkii ugu horeeyey ee haddana uu ku hadlay wuxuu yidhi dadka salaada ma tukadeen salaaduu ka fikiraa waa sahaydii islaamka waa waxa ugu horeeya ee qiyaamaha layska xisaabo waa camalada rabbi loogu dhowaado tawxiidka ka gada midda ugu fadliga badan rasuulku mar walba oo indhaha soo kala qaado wuxuu dhahaa dadka salaada ma tukadeen dadka salaada ma ka baxeen dadka salaada ma dhameeyeen aad iyo aad ayuu uga fikiraa waa sakaraad waa xaaladii ugu dambaysay keena madaxa xanuunaa maanta ma dukado keena caajis ka noqdaa ma dukado keena dukaankiisa ku soo daahaa ma dukado keena ribaa ma dukado xaalada noocaasa fiiriya iyo rasuulka waxa uu samaynaayo ilaa 3 mar ayuu sarajoogiisa ka dhacay rasuulka ilaa markii dambe uu yidhi ani ma bixi karee abuubakar amra dadka salaada ha dujiyo radia allahu canhu xaalada waxay tilmaamaysaa sakaraadka ilaa uu ka yimaado ilaa geerida ay ka timaado in rabbi la caabudo nebiga indhaha uu soo kala qaadaa hadalka ayuu awood u helaa wax kala dhihi maaya aan ahayn salaadii war salaada ma la tukaday indhaha keena soo kala qaada farmashiyaha ma la tegay oo daawadii ma lay keenay waa waxa aan ku hadalno dhakhtarka ma laygugu tegay waa waxaan ku hadalno war naagta kutubka fiirisa ma laygugu tegay meesha layga gaaray waa hadalkaan ku hadalno war nin dufa ama nin buka 100 u talisaye maxaa ii daawo ah waa hadallada aan dhahno nabigeenna fiiri salawaatullaahi wasalaamuhu calayh indhahuu soo kala qaadaa masaajidkuu tallaabooyin iyo saama u qaadaa istaagiisuu ka dhacaa mar walba uu soo kacuu leeyahay dadka salaada ma tukadeen salaada ma laga baxay caaisha waxay tiri aad iyo aad ayuu hadalkiisa u hoosaynayey ilaa markii dambe aan dhegta u dhoweeyey hadallada uu ku hadlayey waxaa ka mid ahaa assalaa wamaa malakat aymaanukum war salaada ilaaliya war salaada xifdiya war salaada adduun ha ka dooranina salaada hurda ha ka dooranina salaada qayilaada ha ka dooranina salaada xumaanta ha ka dooranina salaada qabiilka oo laga sheekeeyo ha ka dooranina iyo wamaa malakat aymaanukum xaalada waa inaan salaada aad u ilaalino si sakaraadka ilaahay noogu qafiifiyo subxaanahu wa tacaala waa inaan salaada xifdina oon istaag iyo khushuuc ku dukano haddaan ku dukan weyna aan fadhiisano haddaan fadhi ku dukan weyna aan jiifano oon jiifka ka dukano war haddaan awoodi weyna si walba oo suuragala aan u dukano war maanta waxaa ka qiimo batay ama aan ka raacnay bakhaaradeena dukaamadeena qayilaadeena iyo waxyaabaha kale war sidaa ma aha qul maa cinda allahi khayrun min allahwi wa min altijaara wallahu khayru raasiqiin waxa alla agtiisa ahaadoo janno ah ayaa ka khayr badan lahwiga iyo tijaarada ilaahayna inta wax arsuqda asagaa u khayr badan subxaanahu wa tacaala walaalayaal sakaraadka waa sidaa nebiga sidaa ayuu dhahayay ee waa la dhimanaa war daarta adduunka ka taga oo daarta aakhira u shaqaysta war daartaan adduun waxaa loogu talagalay in